waxaa marti inoo ah mudanayaal iyo murweyn sida aad halka uga jeedaan guddigii doorashooyinka madaxa bannaan ee heer qaran waxaa halka fadhiya gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan Xaliimo Ismaaciil Ibraahim oo gudoomiyaha guddiga Sayid Cali Sheekh Maxamuud oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka guddiga Saciid Xaashi Warsame oo xubin guddiga ah Dr. Daahir Bire Jibriil oo ah xogayaha guud ee guddiga Cabdirasaaq Abshir Maxamed oo ah la taliyaha guddiga iyo Cabdirasaaq Cusmaan Nuur oo isna ah agaasimaha hawlgelinta ama maxalada director of operationka ayaa halka inoo fadhiya barnaamijkeena sida halka ka muuqata loo bixiyay madasha muwaadinka waxaynu ku falanqayn doonaa oo qodobkeena iyo halku dhigiisu uu yahay doorasho hal qof iyo hal codihi 2020ka Soomaaliya ma ka dhici kartaa sidee looga hirgelin karaa doorasho hal qof iyo hal cod sidee bay macquul ku tahay sidee bay ku hirgelin kartaa doorasho noocaas dalka in laga hirgeliyo barnaamijka waxa ay noo soo qaban qaabiyay ururka maxalliga ee Kaalo iyo jaamacadda Puntland State University waxa kala socon doontaan TV-ga Somali Cable waxaan rabaa inaan u yeero agaasimo ku-xigeenka Kaalo Ahmed Shire Ahmed in barnaamijkan ka muuqata boorka waa madal muwaadiniinta lagu talagalay oo ay iska kaashadaan jaamacadda Puntland State University iyo hay'adda maxalliga ee Kaalo in madashan waxa lagu talagalay in qaabkii la isku keeni lahaa in muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo madaxda in mandate-ka qaranka gacanta ku haya in caawa waxaan xagaan u fadhinaa in arrimaha mandate-ka doorashooyinka in madaxdii mas'uulka ka ahayd heer federaal waxaan u baahanahay marka inaynu su'aalo badan iska weydiino in waxa dadka muddo ay ku soo daaleen Vision 2016 oo ogeydeen meesha ku dhacday hadda ma sheekada oo kala dhici doonta in la dhaho waxaan hiigsadinaa 2020ka oo haddana waxa sidii oo kale miyay ku noqon doontaa su'aalahaas aan rabnaa inaynu u helno si aynu uga carno intii hore ay dhacdo oo 2016 ka ahayd then maxaynu ka hortagi karnaa oo istaajin karnaa maxaynu dhihi karnaa aynu hadda iska sii diyaarino seebaynu isku diyaarin karnaa 2020ka in wadanka ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod muhiimadda madasha caawa dadka isku keenay oo sidaas madasha muhiimadeedu waa in dadku ay hadlaan waa in dadka codkooda la dhageysto waa in muwaadinku uu dareemo inuu wadankan isagu uu leeyahay isla markaasna uu isaga yahay cid go'aanka ka gaarisa arrimaha masiiriga ah ee wadanka saameynta ku leh noloshaada saameynta ku leh generationka dambe oo in bedeli doona muhiimadda guddigu Puntland intuu joogay dad kala duwan buu la kulmay oo ah madaxda Puntland bulshada rayidka Puntland waxay soo bandhigeen shuruucdii iyo waxyaabaha ku shaqeyn lahaayeen iyaga laftirkooda marka inay nooga waramaan bal halka ay wax u marayaan inaguna markaa inuu ka soo jeedino wixii su'aala iyo wixii tala waxaan leeyahay madasha ku soo dhawaada insha Allah noqon mayso tii ugu horeysay iyo tii ugu dambeysay waxay noo xigi doonaa shirar qaabkan oo kala madax kala duwan oo wadanka ama Garowe ha lagu qabto ama Muqdisho ha lagu qabto ama Kismaayo ha lagu qabto oo la isku keeni doono shacabka iyo madaxda oo heer federaal iyo heer maamul goboleed aad baa mahadsantiin waxaan rabaa hadda inaan guddiga oo aan marka labaad soo dhaweynayo inaan iyagana kelmad siiyo madaxda guddiga marka kadib aynu guda galno su'aalaha barnaamijka la xiriira oo madaxdu ay inooga jawaabi doonaan waxaan rabaa inaan u yeero gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer qaran Sayid Cali Sheekh Maxamed si uu halkan kelmad uga yiraahdo isaguna marka horeysa waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa hay'adihii ama ururadii soo abaabulay kulankan iyo ka soo qaybgalayaasha nooc walba ay leeyihiin media ba maaragtay ugu dambayso inta kale oo ka soo qayb gashay oo waqtigooda qaaliga u soo horay inay caawa
doodan qayb ka noqdaan aad baad u mahadsantihiin anaguna aad baan ugu faraxsannahay inaan qayb ka ahaano aan idin hor imaano aan ka doodno mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed wuxuu noqon doono 2020ka waxaana maaragtay ku rajaweynahay ilaahna ka baryeynaa inuu tawfiiqda ilaahna waafajiyo dhibaatadii maaragtay ummadda Soomaaliyeed soo ragaadisay oo maaragtay oo halkaas ku dhamaado taariikhdii fiicneed ummadda Soomaaliyeed ay lahayd inay dib u soo noqoto annaguna ilaahay sabab nooga dhigo idinkoo nala jira insha Allah markaan u guda galo safarkeena maaragtay halkan aan Puntland ku imaanay muddo maaragtay maanta 5 ugu tahay ayaan joognaa taas maaragtay kulay xog badan baan iska wareysan doonaa shaqo baan u nimid wada hadal sida ay ka suurto gali lahayd 2020ka wada tashi Puntland waa ugu horeysaa maadaama hooyadii maamul goboleedyada ay tahay ayaan ugu soo hormarnay laakiin maamul goboleedyada kale oo jira oo afarta kale waa mari doona hadduu Ilaahay raali ka noqdo waxaan anigu qaybta waxaan warbixin kooban idinka siin doonaa guddigan maadaama idinku aydan maaragtay laga yaabo aydan la socon sidoo ku yimid xanaankii oo lagu soo maaragtay oo ku soo baxay ina idinkuna maaragtay ogaal u qabtaan bari markii mandatekiisu dhamaado kan kala imaanaya wadada la marayo sharci degsan baa maaragtay jira marka taas muhiim bay noo tahay in xoogaa idin dulmar idin ku sameeyaan raba guddigan intaan la dhisin waxaa ka horeeyay sharciga lagu soo dhisay oo la yiraahdo law number 4 sharcigaas maaragtay la dhisay oo maaragtay oo u ahaa tiir oo maaragtay guddiga uu ku shaqeeyo mandatekiisa uu ku cad yahay sida lagu soo xulaayana maaragtay ay ku taal waxaan rajaynayaa maaragtay dad badan inay maaragtay nasiib u yeesheen markii aan maaragtay bulshada rayidka iyo meelaha kale aan kala shiraynay dadka waa qaybinay sharcigaas haddii wax ka dambeeyana kulli dhalinyartana la socotaa idin qaybin doonta marka sharcigaas ka horeeyay sharcigaas waxaa la ansixiyay February 2015 la ansixiyay sharciga markii la ansixiyay kadib ayaa guddiga shaqadiisa la bilaabay sidii maaragtay lagu soo xuli lahaa sharciga wuxuu leeyahay in maaragtay bulshada Soomaaliyeed loo bandhigo muddo bil ah idaacadaha wargeysyada website-yada hadba maaragtay sida warka lagu gaarsiin karo 30 bari ayuu wuxuu saarnaa wargeyska si loo maaragtay dalbadaha oo CV-giisa hadduu dibadda joogana uu soo diro haddii kalena maaragtay uu soo gudbiyo waxaana marka hawshaas qabanaya wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sameeynayay maaragtay inay maaragtay baafiso wasaaraddii marka 30 bari gudaheed markii ay soo dhamaatay bisha aakhirkeeda waxay u qabatay guddi ka madax bannaan wasaaradda oo bannaanka laga keenay oo 7 qofood ahaa 7 qofood ee guddiga ku koobnaa ayaa marka muddo 3 sanamaan waxay ka shaqeynayeen 356 oo soo dalbatay oo Soomaaliyeed adduunyada gudaha iyo dibadda joogta ayay waxay ka kala xuleen 27 qofood marka guddiga shaqadiisa waxay ahayd 3 sanamaan inay ka shaqeeyaan 27 oo maaragtay iyagu aragtidooda iyo fikirkooda inuu maaragtay ugu munaasibsan yihiin 356 kulli waa u codeeyeen 9 qof bay ka soo saareen waxay u sii gudbiyeen baarlamaanka markay u sii gudbiyeen haddana maaragtay meeshii looga codeeyay 9 qof waxaana maaragtay waliba looga codeeyay sida aad aragteen oo maaragtay madaxweynayaasha loo doorto qof iyo codkiisa hal qof walba inta meeshaas la fariisiyo sanduuqii aragteen oo codka qarsoodiga lagu ridaayay keli baa looga codeeyay isku xirnaan oo sida golaha wasiirada waa la ansixiyay ma ahayn marka keli baa looga codeeyay qof walba inuu u qalmo jagadaasay tii maaragtay mas'uuliyadaas culayska badan in uu ka bixi karo keligiis ma iskuma xirin marka saas daraadeed 9kii guddi sidaas baarlamaanku ansixiyay July 6deeda la ansixiyay oo 2015 waxaan rabaa intaanan gudoomiye Xaliimo aanan siin inaan u yeero mid iyo labo aqoon-yahanada reer Puntland oo aan rabo inay nala wadaagaan iyaga laftigoodu madashan iyo barnaamijka ujeedkiisa laftigoodu iyo doorashooyinka waxaan rabaa inaan u yeero Salim Saciid Salim bismillah
waxaan filayaa 5 daqiiqaan haystay sida la sheegana waxay tahay inaan isku dayno inaan furfurno dooda oo ay fududaato in dadka muwaadiniinta ay su'aalo weydiiyaan guddiga doorashooyinka heer federaal sida laga dhawaajiyo guddigu wuxuu taagan yahay in Soomaaliya uu gaarsiiyo yoolka ay higsanaysa 2020 in qof iyo codkiis loo dareero dabcan sida adayta laga dhawaajiyay himiladaas mar walba waa jiray laakiin waa ay fashilmaysay waxaana fashilinayay sababo siyaasad la xiriira ama sababo la xiriira arrimaha gudaha iyo dibadda labadaba in doorasho ay Soomaaliya gasho arrin cusub maaha Soomaaliya Afrika ugu horeysay doorasho inay gasho 60kii ilaa 69kii doorasho waa gashay laakiin Soomaaliya waxa ay ku gabagabaysay doorashadii ugu dambeysay si maaragtay walwal waxay doorashada ugu dambeysay ama khibradda ugu dambeysay Soomaalidu ay doorasho u leedahay dimuqraadiyad waxa weeye inay wax maaragtay xanuun badan uga tagtay wood khasaaro wixii la oran jiray baa dhacay waxa dhacay gabood fallo badan iyo ku shubasho iyo iyadoo madax la isaga istaagay ururadii siyaasiga xilliga jireen ay ku kaceen wax kasta oo markaas suurta gelinaysay in ay xumeeyaan processkii ama xaaladii markaa jirta dimuqraadiyadeed kadibna waxaa timi in ciidamadii ay ka faa'iideystaan arrintii oo ay daaqada ka soo dhaceen halkaasna ay ku burburiyaan dhammaan wixii dimuqraadiyad jirtay intii ka dambeysay Soomaaliya ilaa 90kii waxa ay tiqin oo kaliya waxay ahayd nidaamka halka madaxweyne uu talinayo ama dictatorshipka la yiraahdo khibrad kale uma lahayn dimuqraadiyad xilliga hadda la joogo oo burbur laga soo baxayo oo la joogo xaalad post conflict ama dagaal sukay aan ka soo baxayno waa la dareemi karaa guddigu caqabadaha uu wajahayo caqabadaha qayb kamid hore u soo wajahay 2016kii baad inayna gaarsiiyaan way ku soo umay suurta galin walow heestaasi ay muuqatay markii xataa loo xil saari inay suurta galin oo laxankaasi uu muuqday laxan aan socon kara inuu yahay laakiin hadda laftigeeda oo 3 sano oo hadhayo xooga ayaa wali waxa muuqata caqabado badan oo hortaagan marka laga reebo in niyad wanaag uu jiro ama siyaasad political commitment ay jirto dawladda federaalku aad moodid inay ka go'an tahay inay 2020 wadanka la gaarsiiyo doorashooyin maamuladuna ay la qabaan marka taa laga yimaado fursadda ah guddigu fursadda yar oo haysto waxa ka badan caqabadaha uu wajahayo guddigu waxa uu ka duulayo ama waxa uu rabo inuu wax ku kaxeeya waa fan uu ka sugayo banaanka dal intaasoo gobol u qaybsan oo ballaaran fan dibad laga sugayo laga yaabo in la helo inaan la helin ay ku xiran tahay dimuqraadiyadda lagu sameeyaa inay adag tahay in la sameeyo halka waa ka muuqata sidoo kale waxa muuqata in waxyaabaha conditionska ah wali aanay hirgelin suurtagal ma aha dalka in laga hirgeliyo doorashooyin xor oo xalaal ah iyadoo uusan jirin nidaam garsoor oo lagu kalsoon yahay Kenya maanta ugu dambeysay mucaaradku waxay u gudbiyeen go'aan ba u soo baxay maxkamaddii sare waxay taageereen go'aan ay gudbiyeen petition ay dhiibteen qoladii mucaaradka ka waran hadii Kenya aan lahayn maxkamad sare oo lagu kalsoon yahay oo constitutional oo arintaas kale go'aan ka gaadhay waxay noqon lahayd qolada mucaaradku inay baroomadooda iyo rarahooda u yeertaan halkaasna dagaal ka dhaco saawadeed suurtagal uma aha guddiga doorashooyinka inay 2020 gaarsiiyaan doorasho xalaal ah iyadoo hay'adaha dawliga ee dalku aanay xoog badnayn oo dhisnayn isla mar ahaantaasna aysan confidence iyo kalsooni guud oo dalka lagu qabin sidoo kale waxa wali aan la hubin kalsoonida Soomaalidu ku qabi karo guddiga laftigiisa guddigu ilaa heerkeebu independence hadda gudoomiyaha ku xigeenku wuxuu ka dhawaajay xataa waxyaabo ay xulayaan wasaaradda federaalka marka laga hadlayo independence-ga guddiga waa inaan wasaarado iyo executive ay soo galin hawlahooda dhammaan hawlahooda waa inay u madax banaanaadaan iyaga ay noqotaa cidda xulaysa laakiin inta wasaarad iyo qoliyo madaxtooyo ay ku laban yihiin guddiga muwaadin ahaan su'aal baa la saari karaa inay yihiin guddi madax bannaan oo ka madax bannaan saameynta executive sidoo kale waxa laga rabaa guddigu inuu xalliyo bad experience-ka Soomaalidu iyo walwalka ay ka qabaan doorashadii wood khasaaro armay tanoo kala noqota oo dhibaato noo horseeda maxaa yeelay dagaal sokoyeen ka soo baxnay hadii 2020 doorasho loo dhaqaaqo laba mid bay noqonaysaa imma waddo wanaagsan inaynu ku dhaqaaqno oo aynu kaga baxno burburkii inaynu gadaal u noqono Afrika oo dhan wadamada doorashooyin ka dhaceen labadaas mid noqotay waxay noqotay in ama ay dib ugu noqdeen hoog iyo bii ama inay hore uga dhaqaaqeen maxaa yeelay wali kalsoon xumaa jira walina dadku iskuma kalsoona sidoo kale aqoonta iyo xirfadda loo leeyahay arinta laftigooda waa ay liidataa guddigu waqtigu haystaa waa yariya 3 sano xoogaa weeye laga yaabo in fan iyo ay ku xiran yihiin meelo ka banaanka inay wax ka sugayaan waxaas inay dib dhici karaan sidaa wadeed guddigu ma saacidayo waqtiga ay haystaan iyo shaqadoodu ismale guddiga waxaan saacidayn nidaamka tartanka loogu jira awoodda qaybsiga dalka maamulo iyo dawlad dhexe
oo wali aan dastuurku cadayn wax ayay dhexboodeen ku dhex shaqaynaya hawlahoodu waxay ku xirnaan doonaan sida dastuurku wax yiraahdo suurtagal ma tahay maanta qofka baydhabo jooga inuu garow yimaado oo uu iska sharaxo oo uu tartan ku galo suurtagal ma tahay ninka garow jooga inuu baydhabo tago intuu xisbi ka furto inuu ku tartamo waxaad moodaa wali inaan heerkaas oo kale ayan Soomaalidu gaarsiisnay laakiin midda guddigu haysto fursadda waxay tahay dhammaan dadka Soomaalidu laxanka ay hadda dhageysanayaan waa in doorasho dhacda xataa Puntland 2019 baa dawladda laga dalbanay inay dhacdo Somaliland markii saddexaad meelahaas ay galaysaa laftigoodu inay doorasho dhacdo waxaana ku soo gabagabeynayaa Somaliland inkastoo ay maamulka banaan u baxayeen oo dhaheen Soomaali ka mid maahan laakiin hadda waa cid ugu khibrada badan Soomaali doorasho laga qabto cid ugu khibrada badan hadda oo wuxuu taagtaagay bahashana iyadoo xataa liidata ku shaqay maxaa ila doorashada 2020 ma aaminsan inay ka fiicnaan ka dhigto Somaliland maxaa ila Somaliland baa khibrad badan oo wax soo sameeyay annaga bilow baan ku soconaa saawadeed xataa taayira Somaliland inkastoo ileen waa goonay haddana waxay mudan yihiin in wax laga barto bilaajo waxaan ku soo dhaweynayaa inay kelmadeeda halka jeediso gudoomiyaha guddiga heer qaran ee doorashooyinka Xaliimo Ismaaciil Ibrahim sidoo idin sheegay gudoomiye ku-xigeenka habkana loo soo doortay waa aragteen laakiin haddana doorashadiina la doortay Puntland kaliya ma ahan gobolladoo dhan xoogaa waa ka lug jiidayeen waxaa jiray hadaa u malaynaysan inay Puntland kaliya taa ma ahayn galmudug ka mid ahayd oo nadiidaneed muxuu ahay South West ya ugu rooneed alla wax yar markaa Shariif Xasan la kulantid u dhahay aragna waxa qabatiin oo negativity aan naga horkeenin laakiin min dhaa muxuu ahaa garabka ugu fiican oo haysano ahaa runtii Jubaland sidoo kaleeto waxa jirana wax kale ma ahayn waxa tensionkii oo doorashada soo dhawaatay federaalkii iyo state federaalkii tensionadii ka dhex jiray iyo shaki ka dhex jiray maxaa yeelay annaka dal soo burburayaan dalka haduu burburayna waxa ka dhumay trustiga ka dhumay umada trustiga naga wada dhumay qofka markuu halkan soo istaago waxa ku jira iyo khibradiisa iyo wuxuu aaminsan yahay si alla ka cabsi ah loogama dhageysanayo laakiin waa la charge gareena meel lagu tilmaamo waxa leeyahay qofka meeshaas eeba aniga muxuu ii sheegi karaa waxa aad nooga tagay is-aaminaadii naga tagtay marka waqti waxaan ku soo aadnay aad u xumaa ay is-challenge gareynayeen state muxuu ahaay maamulada dawladaha gobolada iyo dawladii muxuu ahaa federaalka ahayd taasay oo ahayd nalama tashan iyo waa la tashanay muranka dhan intaas oo ah guddigan sameyntiisa nalama tashan iyo federaalka oo dhahay waa la tashan laakiin annaka alxamdulillah ma aanan dhexgelin muxuu ahaa murankaas ma aanan dhexgelin waxaan fiirinayna mas'uuliyadda saaran iyo wadankan waxa uu u baahan yahay marka shaqadeenan si tartiib ah aan iskaga wadanay annaga hadda ka hor idin ma imaanin sababaa keenay inaana idin imaanin sababaa aan ku imaan waxa ugu weynaa meel markaa tagaysa waa inaan qalabaysan tahay hadda dagaal galayso waa inaad hubsidatid hadda imtixaan galaysidna waa inaad soo daristay imtixaankaas aad galaysid inaad habeenno u soo dhafarto aad soo daristay si aad uga jawaabtid marka imaanayno dad isdifaaci kara dadkana wax u sheegi kara doorashada wax ka fahamsan annagoo ah inaan idin nimaadnaa rabnay haddaana ilaahay ka dhigay inaan idin nimaadno muddo 2 sano aan soo jirnay muddadaas 2 sano ah annaga waxaan ku jirnay iskool runtii daruusaan soo qaadanaynay daruus fiican aan soo qaadanaynay waxaan diyaarinaynay foundationkii iyo meeshii looga duuli lahaa doorasho waxaan filayaa barnaamijkan ama madasha muwaadinka loo bixiyay faham fiican baynu hadda ka helnay madaxdii doorashooyinka heer qaranna warbixin fiican bay naga siiyeen arrinta waxaan rabaa inaan gudagalno su'aalaheenu waxay ku qotomaan madasha muwaadinka waxay ku qotomaan doorasho qof iyo hal cod iyo hal qof ahi 2020 kama ka dhici karta Soomaaliya maxaynu u baahannahay inaynu sameeyno maxaynu hortaagan saddex qof ayaynu su'aalaha isu raacin doonaa guddiga aynu jawaabi doonaa hadii la haydmo Professor Sulub ayaan rabaa oo gacanta taagay inaan siiyo soo hormariyo
su'aalaha aan rabo inaan guddiga weydiiyo iyo mid mar walba lagu hadaaqoo laga hadlo oo markaa meel fadhiisato dad isku yimaadaan yidhaahdaan ma suurtoobaysa waa suurtoobaysaa inaan lahayd waxay yidhahdaan idinama imaan biraha guddigo oo intaas waa isdiyaarinaynin su'aal baan weydiin lahaa waxaan odhan lahaa hadda diyaar ma tihiin ama intee baad u jirtaan meesha la rabo in la gaaro intee baad u jirtaan marka arrintan doorasho way dhici kartaa see way ku dhici kartaa haddii waxaad qaarkood yidhaahdaan arrintu qabiil bay noqonaysaa security baa khatar gelaya xabadaa la isku qaadanayaa waa la dagaalamayaa dib baan u noqonaynaa dhib bay noo keenaysaa dhib intay noo keeni lahayd aan iska dayno anna waxaan idhi dhib 100 sano kadib imaan doona hadda ha dhaco ha la istiro hadda ha la istiro dhib ha dhaco hadda ha dhaco laakiin 100 sano 10 sano 10 sano yuuna dhicin baan leeyahay hadda waa in la maraa jidku sugaya haddaad mar walba ka baqdid oo mar walba ka hartid weligaa meel gaari maysid mararka qaarkood risk taking baa loo baahan yahay laakiin waa waxay ku dhici kartaa kala doorasho rabitaanka su-aasha kale waxa weeye guddiyada doorashooyinka oo idla midka ah waxaa ka mid a maandhaydyadooda kolleba waxaa idin weydiiyey job descriptionka professor sulwe maandhaydyadooda waxaa ka mid ah inay awood u leeyihiin inay yidhaahdaan hebel ama heblaayo uma qalmo inuu xil Soomaaliya ka qabto dalkaas ka qabto idinka ma idinku jidhaa maandhaydkeena inaad dad Soomaali ah iyadoo de kolleba dalkan waxaa jira dad badan oo dambiye ka galay oo burburkiisa ka qayb qaatay oo aan u qalmin inay dalkan ka mid noqdaan xilal ka qabtaan ama isku soo sharaxaanba ma ku jidhaa maandhaydkeena inaad tiraahdaan hebel iyo heblaayo uma qalmo xilka uu raadinayo ismana soo sharaxi karo xoosh docol arday baan laba su'aalood baan qabaa labada su'aal waxa weeye midda koowaad dawladdu ma diyaarisay dhaqaale banaanka ka ah dhaqaalaha ay beesha lixaad bixiso koow midda saddexaadna labaad su'aasha labaadna waxa weeye guddiga doorashooyinku ama guddiga doorashadu awood ma u leeyihiin inay gaaraan deegaanada ay ka taliyaan shabaab iyo maxaan ku radaa rebelska ama kuwan ka soo horjeeda ee dawladda waxaan israacinayaa jawaabaha guddiga ayaan siinayaa waxaan qabaa in su'aalo badan la weydiiyey hadda marka waxaan rabaa hal mar oo breega inaan bixiyo oo aan guddiga siiyo jawaabaha isaga bixiyaan wuxuu doctorku yiri inteebaad u jirtaan goolka muxuu ahaa mase muxuu ahaa doorashada la qabanaya 2020ga waxaan u qaatay inteebaad diyaarsan tihiin sida ay gudoomiyuhu u xusayba annagu yani waa dadaalnay labadii sano aan jirno sidaan isku dhisi lahayn marakanna yani caawa halakan ma oran karno yani 70% baan diyaarsanahay ama 80% baan diyaarsanahay laakiinse waxaanu oran karnaa runtii yani waxa caqabadka oo jira oo dabcan dib leeni kaga sheegayo saaxiibadii sheegayaan haddii ma aragto oo inta badan ay saanaga Xuseen ay khusayso maamulka jira ama dawladda ay khusayso waxaanu oran karnaa yani waan ku dhownahay waan oran karnaa muxuu ahaa Obama wuxuu yiri yes we can marka anagoo waxaan oran karnaa yes we can insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim hadii aan wax yar ku kabo walaalkay Saciid professor Sulub su'aalaha uu weydiiyay mid ugu horeyso ahayd intee u jirtiin in doorasho la qabto ugu dhowdiin ma ka dheertiin ma diyaarsantiin waxaan diyaarinay istiraatiijiye 5 sano 2017 ilaa muxuu ahay 2021 waxaan u niraahday hadii 20 doorasho dhacdo bil kadib inaan bilaawno say u dhacdo doorashadaas qaldaadkii la galay caqabadihii dhacay waxa loo baahan yahay in la sameeyo iyo isu diyaarinta tii kale sharciyada loo baahan yahay in la bedelo saas marka step sanad kasta hadda laga bilaabo 2017 maanta meeshaan aan joogno oo halka aan ku la fadhino istiraatiijiyadeena ku jirtay inaan gobolada tagno muxuu ahaay la soo qaybsano muxuu ahaay shaqadeena xiriirkeena aan bilaawno si hore aan ugu socono marka waxay noo leedahay bilbil waxay noo leedahay week
saddex wiig bil 2 bil 3 bil 6 bil sidii lagu gaarayo istaraatiijiyadeen saas marka waa noo cadahay aaday maaragtay u asiibeen saaxiibaday halkan wax yar su'aal yar oo maaragtay aan isleeyahay dulmar yar u baahan tahay oo professorka uu soo jeediyey job description-keena inaan wax yar ka taataabto anagu doorasho waa dhacaysa ma dhacayso anagaa dhihi karno haddiiba ay maaragtay ay baaqanayso haddii dib loo dhigaayo anagaa dhihi karno iyo inaan announce garayno doorashadii markay dhammaato inaan sheegno wakhtiga doorashadu ay dhacayso maalinka saacadda goobta inaan cayinno meelaha lagu codaynayo goobaha inaan maaragtay xisbiyadii aan regular garayno lacagahoodii iyo maaragtay sharciyadoodii waxyaabahaas oo dhan mandatekeena ay ku jirtaa oo job description-keena marka intaa waa ka badan yahay waa 28 qodob oo job description-keena uu sheegayo oo ay ugu muhiimsan tahay waxyaabaha hadda maanta aan iskugu fadhino doorasho waa dhacaysa ma dhacayso cid kale haddaa ka maqashaa ka yeelin anaga umad naga maqli doonta insha allah waxa kale waa been Umar Abdirashiid Daraad waa nagu gaaday sida la sheegay 5 biri baan jirnay marka mana dhihi karin war wuxuu sheegay waa jira ma jiro hatta sharciga la sheegay markaas inaan akhrino ogaano hatta jeena looguma sameyn 5 biri adoo jirta marka ma aragtay waqtigana lagu gaaday waa iska fahmi karteen laakiin sharciga ama dastuurka wuxuu sheegay hadda dib u fiirsaan qodobkiisa 110 wuxuu sheegayaa in guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka la dhiso 2012 in la dhisay waa ku saxsan yahay laakiin delay tactic inay jirtay baa maaragtay 2015ka 5 biri kadib markii la dhisayna loo yiri doorasho ma dhici karto marka idinku you have to sort it out marka adiga hadda guddi tahay waxa qaban lahayd marka shaqada saas ay ahayd waa madaxdii hore siday u shaqeysatay ahayd marka Axmed Abshir wuxuu ina weydiiyey inaan anagu ka reebi karno musharax ama maaragtay aan dhihi karno qof muwaadin ah oo soo sharxay oo maaragtay shuruudihii musharaxnimada soo buuxiyey anagu kama reebi karno shuruudaha jiro oo asaga oo maaragtay xisbiga oo ku tirsan yahay inuu maaragtay ka soo buuxiyo xisbigiina oo maaragtay oo hogaankii u soo doortay anaga marka waxa meesha ka fiirinaynaa in maaragtay wixii dhaqaale ah oo xisbigaas iyo musharaxa siday ku yimaadeen sharciga sidoo faraayo ayaan raacayna haddii laakiin sharciga la jabiyo waa ka reebaynaa taas la isma weydiinayo laakiin wixii sharciga waafaqsan muwaadinimadiisa ay ka bilaabato da'diisa ay ku xigto iyo wixii kale oo maaragtay markaas uu sharcigu sheegayo ayaan uga reebi karnaa sidaas oo kale muwaadiniinta codaynaysa waxaan uga reebi karnaa inuu is-register-gareeyey waxaa jiri doonta voting registration oo maaragtay dadka oo dhan maaragtay jaanis u heli doonaan inay isku register-gareeyaan strategic plan-ka oo maaragtay gudoomiyaha idin sheegtay wuxuu noo sheegayaa bilowga 2020 marka December lagu wado doorasho inay dhacdo January in maaragtay voter registration oo bilaamayo 6 bilood bay qaadanaysaa wadamo 3 bilood daraad markaan Kenya tagnay waa ka wareegsanay guddigooda 3 bilood ay ku qaadatay waxay ku qaadatay 3 satamaan meelaha ugu badan 3 bilood ay qaadataa anagu waxaan maaragtay qorsheynay inay 6 bilood ay gaarto sababtoo ah wadankeena iska burbursan logisticadii waa iska dhib badan tahay marka waxyaabo badan baa ku talagalnay dadkeena maaragtay addressyo maaragtay ma laha waxyaabahaasna marka waxaan ugu talagalnay ilaa 6 bilood inay qaadato in voter registration-ka dadka loo siiyo fursad inay is-register-gareeyaan qofkaan is-register-gareyn oo markaas uusan ku jirin voting registration-kaas ma codayn karo marka taas baan uga reebi karnaa qofka muwaadin ah xuquuqdu leeyahay waa inuu codkiisa u baxsan karaa marka taas aan naga reebayso amniga oo maaragtay hadday suurtagali weyso meesha aad joogtaan su-aashii ahayd oo isla Axmed ah anagu inanaguma xukumin inaan gobol gaara meel gaara aan ka shaqeyno madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta dawladda dawlad goboleedka Puntland waxaan kala hadalnay in guddigu oo maaragtay uu ka shaqeeyo halkan lana la shaqeeyo guddiga Tibek oo halkan aan si fiican u afgaranay aan iskala shaqeyn doono wixii doorashada tan Puntland naftigeeda iyo maaragtay tan oo federaalka inaan ka wada shaqeyno iyaguna ay maaragtay ay xaqaan ay wakiil nooga yihiin anaguna maaragtay wixii anagu aan dhaano
aan ku kabno doorashada soo socotana maaragtay mas'uuliyiinta naftigooda ay noo soo jeedeen ama say tahayba inaan maaragtay ka wada shaqeyno taasna maaragtay meesha ayay ku jirtaa arrinta su-aasha ku saabsan dhaqaalaha waxay qusaysaa madax bannaanida guddiga waa run laakiin guddoomiyaha ayaan maalin baan waxaan weydiiyey arrin bay ii sheegto waxay tidhi duubkayagii ama odaygayagii baa la caleema saarahayay magaaladii teewe arcadeeyaa lagu caleema saarahayay markaas waxaan weydiiyey inta lacag ku baxday waxay igu tiri $2 milyan baa ku baxday soo saas maaha $2 million anigu waxaan hubaa waana u soo joogay da'deedana waa joogaa dadka Soomaalida ah inay doorasho qabsan karaan iyaga oo aan gaalada ama gaalada yaana sorry iyaga oon ajnabi lacag aan ka yaboosan ama ka tuugin taasaan hubaa waa moogoshiin inaynu 2 milyan aracadeeye maxaan ku yidhaha hal jees ay soo aruuriyeen annaguna inaan isu keensan karro doorasho ku qaban karro maynaa samayn karin saas soo mentalitiga ah inaynaa wax qabsan karin iska ilaawo weliba waxaan la hadlayaa ardada iyo professoradana waa la hadlaya that mentality ma shaqaynayso waxaan rajaynayaa guddiga kan in uu ku qanciyo Puntland oo meel nabada joogta budgetkeeda inay wax ka bixiso oo guddiga ku kabto dawladda federaalka una inay budgetkeeda wax ka bixiso oo doorashada u qoondayso markaas dal shisheeye lacag aynu ka qaadanay uma madax banaanin marka hana ku tashanina hadday inoo keenaan World Bankiga iyo xoogaa iyagoo boorso ku sida hadde never mind waa iska ogolaanaynaa inkastoo waa ogolaanaynaa waayahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeennii madasha muwaadinka waxaan rabaa dhanka hablaha inaan aado maantana waxaa la ilahaa raggii baad gacanta siinaysay waxaan siinayaa gabadha geeska cawo aniga magacaygu waa Cawo Suleymaan Cali waxaan ahay ardayad ka dhigata jaamacadaha Puntland gaar ahaan jaamacadda BSU waxaan rabaa gudida inaan laba su'aalood weydiiyo labada su'aalood oo si toos ah iyaga u abaaraysa aanan u gogol xaadhanayn su'aasha koobaad waxay tahay oo weydiinayaa oo topigan laga discuss gareynayo oo ahaa doorasho ma dhici kartaa waxay noo sheegay inay su'aashaas iyaga u taalo ay ka jawaabayaan gudida qayb kamid oo ah iyagu inay ka jawaabayaan su'aashan inay dhacaysiyo in kale ay tahay maxaa caqabado hor yaala inay doorashadani dhacdo su'aashan iyaga weydiinaya waxay tahay 2015 baa gudida la aasaasay haddana waxay noo dhacday doorasho dadban wax la yiraahdo oo lagaga soo baxay doorashooyinkii qaababkii hore loo qaban jiray doorashadaas oo in oran karno يعني أما مركي هو أموقتي سدي فعلادي مركي هو كموقتي هيد إني كفي عن تهاي تي واجي هو اللقبان شري وهيد إنه اسمه صام جعابو محل حلبانكا إمي كنا نقطي إني كوبي كنت نقط صادرتان حلبانكي وبيش وذا كميدا ونهار كأكون نقضو حلبانكا ومثلا غير كاس تام ما أموقتي إني كفي عناتي دور شوي كي هو اللقبان شري ومايا waxay abuurtay isqabqabsi beeleed iyo mid reereed bay abuurtay oo tii hore lama oran karo exactly way ka fiican tahay iyadoo ay abuurtay dib u dhac isla kii lamida waad ka tusaale qaadateen oo waad joogteen idinkoo abuuran oo gudidaas qaabkeeda u abuuran
marka ma odhan kartaan oo ma is odhan kartaan idinkoo tusaalayaashaas ka soo qaatay doorashadii iminka 2017 dhacday iyadoo rabitaan shacab ay ku dhacday iyadoo maxaa la madaxdu aysan rabin xataa madaxweynahaasi inuu soo baxo laakiin cod iyo rabitaan shacab uu ku soo baxay madaxweynahaasi ma odhan karnaa doorashadani ma dhici karto waxaysan u dhici karin maba jiraba xiriir ka dhaxeeya dimuqraadiyaysan bay ka sheekanayaan dimuqraadiyayshankuna wuxuu yahay maamul goboleedyada wadanka ka jira waa in at least ka jiraan xiriir u dhaxeeya iyagii waa inuu midow jiraa waa in يعني أي شيران صاحب تنمو أما واحد لأوران كرو ويسكو دوينيا معمول قبلدي دي بشيران ما شيرتا تاس وكله. أدبي ما تصنت هاي ولا شيء وحنسينا يا إدريس سرو. وحنسينا يا وحن عطسنا يا مرة بعد إلا سوق وابو قفكوا سؤال ما متكبدين وقت جاين لقوابو وقت جاين لبيخامية تتكوا بديه. سؤال شيء واحد تهاي ما دام وقت ويري هاي جدي دو وافهني واستقال حمنات structure kale oo jira oo secretary general kugu sareeyo ilaa shaqaalaha hoose ma civil servants ba mise waa shaqaale kale oo ka madax banaan hadii se uu ka madax banaan yahay sharci caanka ayaa lagu dhaqaa waa maasantii guddiga waa gudoomiye iyo guddigaba waa salaamay aad baa u mahadsantihiin inaad ugu soo booqataan Puntland annagana sharaf weyn bay noo tahay inaan idin marti gelino gaar ahaan halkan jaamacadda BSU hadalkii waa farbargu waxay dhahaan hadalka ka bixin mayo qofka marka hadalka waa la yiri wixii la leeyahay laakiin waxa aniga maskaxdeeda ka guuxaysa Puntland waa aragnimadii aan ka ogaanay doorasho waxay tahay 18 sano bay dawlad tahay Puntland waagi la aasaasay say tahay bay ilaa iyo hadda tahay tabeen baa sheegaya wax ka dhaqaaqayna ma jiraan hadda waxa madaxweyne noo noqday professor nina dib buu noo sii riixay badan baan bartay horta runtii oo cilmiyaho dawladda dhexe oo aynu isleeyahay marxaladaada adagoo waxay tahay a very difficult situation environment bay ku shaqeynayaan laakiin marka la fiiriyo intay gaareen annagii 18 sano joogna ma ay gaarin waxaa yeelay guddi madax bannaan baa halkan jira dawladda iyadana waxaa laga baryayay oo nin walba markuu xukun ka sii tagayo buu guddi aan meel la gaarayn inuu og yahay buu sameeyaa marka saddex qodob baan anigu mar kasta ka fiiriyaa haddii daacad laga yahay in doorasho la samaynayo gudoomiye ku-xigeenku wuxuu ka dhawaajiyay arrin hadeer aad baan ugu soo kacay wuxuu yidhi waxaa la samaynayaa electoral register soo saas maa gudoomiye ma garanaysa electoral registerka waxaa laga soo dhex saaraa census marka la sameeyo ayaa laga soo saaraa dadka kan Puntland jooga waa nabad badankooduna waa hal qoys elementa dawlad goboleedyada Soomaaliya hadda they are gravitating towards ma garanaysaa clan fiefdoms bay hadda u sii socdaan annagu marka already waxaan ahayn an existing clan fiefdom haddana waxaan bal ilaahay amarkiis aynu samayn laanahay dadka inaynu sansa samayno oo dadka tirino waana arrin sahal ah anigu hadda macallin jaamacadeedna waa ahay gobolada dhaqankana waa ku jiraan nabadoonna waa ahay marka aniga reerkaygu waa ii tirsan yahay marka waxaan la yaabanahay dadka saa u tirsan baan nahay waxyaalaha dawladda gudoomiyuhu waxay tiri arrin muhiim ay ka dhawaajisay waxay tiri horta inay xor yihiin waxaan ku garanayaa sida xorta ay u hadleen oo bisaraxada wax loogu sheegeen waxay tiri madaxdii ma rabaan in dadku uu madaxdooda ay doortaan ma rabaan waxaana ka garanaysaa waxaa laga leeyahay hadda bal Puntland 18 sano jirtaa census hala sameeyay rag badan oo aqoon-yahano ah oo og inaan samayn karo oo tirsan oo qurax iyo qansac iyo aan kala nahay ayaa haddana waxay ku leeyihiin census lama samayn karo waana waxa ugu sahlan oo Soomaali laga sameeyo waxayna Soomaalidu ka qabiilo iyo nabadoon ay leedahay la codeeyo marka anigu waxaan dhihi lahaa
dad badan baa ku celiyay gabadha ugu dambaysay waxaa dowladda ku bushgaraysaan in sida ugu dhaqsaha badan maxkamadda dastuurka loo sameeyo in wax يعني necessary maaha professorka sheegay in waxa la saxo baa necessary baa in dadka la tiriyo bal inta la tirin karayo meelaha dawladdu gacanta ku hayso marka ka bacda electoral register laga soo saaro guddiga doorashada waa sameeyay waa saddexda arrin way marka anigu su'aasha ay weydiinay waxay tahay qorshihiinu muxuu yahay in maxkamadda dastuurka la sameeyo iyo in dadka la tiriyo si electoral register la sameeyo waa maasati waayahay waa maadsan yahay professor Cabdiqani arinta muhiimka oo waxa way barashar in la saaro hogaamiyaasha ama madaxda waa waxyaalaha madashan aynu qabanay bulshadu inay araahdooda isku dhaafsadaan madaxdooda iyo gudiyadooda iyo hay'adaha qaabilsan barnaamijyadooda horumarineedba iyo iyagu inay is hor fariistaan waa barnaamijyada noocan oo kale waa aynu sii wadi doonaa hadii ay hawada leedno waxaan rabaa inaan Shucayb siiyo su'aasha kale aan weydiinay waxay tahay qof markuu fanku siiyo ama maxaan dhahay lacag ku siiyo dee waxa la socda mabda sideedana waxa weeye mabda iyo power sidee la isku kontroolaa haddaad garan weydo waxa laba un baa imanayso in mabda'aadii hoos u dego ama powerkaaga hoos u dego wax ka kharibmaan marka waxaan dhihi lahaa waxaan u jeedaa saddex awoodda guddiga iyagoo baarlamaanka u report gareeya iyo qolada lacagta siisa ma waxa idinku dhigtaan baa qormaye mise qolada lacagta idin siisa waxay dhigaan baa qormaye qaabkee wax u qormayaan inaan noo sheegtaan rabaa isagana inaan barxagga odayaasha dhalinyaradii baad maanta ku badnayd baa leeyahay marka dhalinyarada cuslaatay Maxamed Yuusuf Tigay anigu guddiga waxaan oran lahaa waxaan weydiin lahaa waxaan noo sheegteen muhiimaddu inay tahay in aad wadadii doorasho ay ku dhici lahayd aad u xaaraysaan inta yadaanu hadda ka hor ma aanan fahansanayn sidee ku gaari kadhaan marka wadadaas in aad dadka ka dhaadhicisaan oo aad ku wacyigelisaan oo aad u sheegtaan burgal waa maadsan yahay waxaan rabaa guddiga intaysan su'aalaha jawaabahooda gaalin inaan min kelmad siiyo professor Faahiye iyo professor Maxamed Saciid aad iyo aad baad u mahadsantihiin guddiga inaad noo timaadeen na soo sharifteen weliba rabtaan inaan sidii doorasho loo geli lahaa noo sharxaysaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin anigu waxaan aaminsanahay in doorasho la samayn karo ayna suuragal tahay marka waa idin taageeraynaa wixii aad noo haysaan ama noo diranaysaan diyaar baanu idinnahay waa mahadsantihiin waxaan isku dayahayaa inaan commenti ka bixiyo ama ka jawaabo su'aalo soo noqnoqday su'aal aad u soo noqnoqotay oo dhaqaalaha ah runtii anu backgroundkaygu nin bangaari aan ahay marka mashruuc haddii la qabanayo haddii aan lay tusin maaragta dhaqaalo ma dhaqaajin jirin laakiin hadda duruufaha waddankeennu uu marahayo nin walba waa ogyahay guddigan wuxuu ku soo shaqeeyey asagoo aan 7 bilood mushaar qaadan baanu soo mar alxamdulilah hadda sidii waa la dhaamaa ujeeddada naga go'an oo guddiga ka go'an oo hoosta ka xareeqay waxa weeyaan in uusan waxyaalo yaryar uusan fiirin annagoo og ahmiyadda ay dhaqaaluhu leeyahay annagoo haddana og عرفت واحد هذا الذي لا يملك قوته لا يملك قراره هذا المر آذن قوت كاجب آذن أودين جوان كاجن ما أد أودينا جوان قادي تاس أنه رميسان فهذانا واحد كده تقارها يركا ماشي كيما هذا باش لحاد وأكو خصبنا maadaama annagu aan Soomaali ahaan aan dhaqaale haysan marka dhaqaalahan la soo celcelinayo u joojinaynaa ilaa meeshii aan gaari karno iyo wixii aan isku kabi karno iyo meeshii aan dhaqaale ka heli karno si aan waddankeena u gaarsiino 2020 biidnillaahi kariim
heer ka fiican heerka maanta uu joogo waana mahadsantihin tanuu saciid sheegay haddaan maaragtay ku kabo dhaqaalaha maaragtay asaga sida uu sheegay ayaan uga gudbaynaa laakiin su'aalihii oo la soo jeediyey badankood waxay u badan yihiin caqabadaha oo maaragtay doorashada ka hor imaan karta ama baajin karta ama hadda hor taagan marka la soo kabo warka meesha ku soo aruuray caqabadaha annaga markaan maaragtay aan baarnay si kasta aan u fiirinay afraan ku soo koobnay afarta waa siyaasadda waa tan la sheegay rabitaanka maaragtay mas'uuliyiinteenna inay maaragtay ka go'an tahay doorasho inay dhacdo waa mid labaad amniga waa ka horeysa weliba tan oo amniga siyaasadda ka horeysa siyaasadda haddii la rabo amnigana ayagaa fulin kara marka siyaasadda ugu horeysa waa koo labo amnigana maaragtay waxay ku xiran tahay rabitaankooda marka in maaragtay amniga la sugo marka taasna maaragtay waa tan labaad dhaqaalaha hadda la sheega iyaduna maaragtay saddexa in la helo dhaqaalihii lagu fulin lahaa dhaqaalaha la sheegayana maaragtay mid oo markaan anagu hadda voter registrationka aan sheegnay la qiimeeyey 50 milyan ayaa ku baxayso keligiis waa kan ugu qaalisan marka dhaqaalaha kan saddexaada kan afraad oo asaga laakiin tartiibka ugu horeeya uu yahay asaga waa sharciyadda waa constitutionkii electoral law sharcigii muwaadiniinta oo maaragtay citizenshipkii maxkamadaha oo maxkamadda dastuuriga oo mar badan laba jeer baa la soo weydiiyey inay jirto sababta oo go'aamada qaarkood oo guddiga maaragtay uu ku dhawaaqo ama maaragtay uu diido maxkamadda dastuuriga unbaa maaragtay loo aadi karaa marka inay meesha ka jirto waa maaragtay waa wax khasab ah afartaas anagu aan hadda aan sheegnay waxay tiirad u yihiin qabsoomida doorashada 2020 marka inta kale oo dhimanna marka saaxiibadan ku wareejinayaa marka si ay idinku dhamaystiraan 2020 waxaan rabnaa horaantiisa January voter registration inaan sameeyo voter registration waxay taadaan tirkoob lahayn ma la sameyn karaa waa la sameyn karaa meelo badan laga sameeyo Soomaaliland hadda sameeynayso way sameeyeen 900 oo qof ay register gareeyeen censusna ma laha garaadka wuxuu yiri dadkaygu waa ii tirsan yihiin garaadka keenaa dadkiisa kan aniga waayuu leeyahay waa loo register gareynayaa ya caaqilka sama waxa isaga ii keenaa wuxuu leeyahay waa ina hebel waa saas meeshaas u degan yahay ma hubta xaashiyaan ka saxiixa waa la register gareynaa markii biometric loo register gareeyo ku kale mar kale iyo meel kale qofku ma tegi karo waa qoran yahay indhihiisa yaa la qabtay farihiisa yaa la qabtay hadduu laascaano iska regisgaray caynaba ma tegi karo waxa waaye waa la hayaa saasaa loo samayn karaa iyadoo statistika la sameynin gudoomiye ku-xigeenkaa sheegay afarta caqabadooda ugu waaweyn midka sharciyada waa sharciyadii oo dhan in la helo haddaan sharciyadii la helin doorasho ma imaanayso micnaheedu ma anaku inaan inta meel iska fadhiisano aan iraahdo sharcigaasoo la helin waxba waa inaan anagu shaqeyna xataa ha nagu gaartay inaan draft garayno oo dhahna waa kana sii wada laakiin waa in la helaa sharciyadii sharciga doorashooyinka wax badanaa ku xiran nooca doorashadaa ku xiran nooca voter registrationka aan sameynaynaa ku xiran censuska iyo maxaa laga yeelahaa ku xiran waxaa ku xiran seat allocation 275 kursiyaan leenahay ma la isku raacsan yahay ma asagayaan qaadanaynaa ma si kalaa seat allocationki loo samaynayaa imaanaysa tirada xaggee la kala geynaya kuraasta ma degmooyinaa la geynaa soomaaliya oo dhanaa loo laga dhigaa doorashadaasayto oo xisbigii ugu buunda badnaadaa kuraastaas helaya ma isteedyadaa la kala geynaa sidii ayaan dhoweyto waxaasoo dhan waxaa noo cadaynaa oo doorashadii ku xiran sharciga doorashooyinka nooca xisbiyada xataa xisbiya ma sida Soomaaliland iyo hadda Puntland sharcigiis ma 3 xisbiyaan cayimeynaa ma 5 xisbiyaan cayimeynaa sidii waagi hore ahayn xisbiyadii badneed xisbiga ugu buunda ugu turab kuraas badnaada ama joraansada qaadanaya dawladii hogaaminaya ayada nafteeda waxaa laga rabaa sharciga doorashooyinka inuu ku soo baxo qodobkaas hadda wuxuu leeyahay sharciga xisbiyada
wuxuu leeyahay xisbiga haddii si uu xisbi qaran ku noqdo waa inuu 9 gobol oo 18 gobol ka mid ah uu ka rajistaraysan yahay uu xarumo ku leeyahay uuna haysto 10,000 oo muwaadin oo vote registraysan walina annaga wax ma registrayn waxyaabaha isdiidaa waa oo voter registration very strict waa inuu 9 gobol iska registraya 10,000 oo intaasna uu helo waxa loo yeelana waxa waaye wixii fududaanin si sahlan yaa lagu helin xisbi ka soo qaado xisbi nabad la yiraahdo inuu Puntland ka jiro inuu dawladihii hoose iska sharaxay inuu asaga ugu dad badnaa ugu kuraas badnaa xisbigaas si uu qaran ku noqdo waxa loo baahan yahay inuu 9 gobol ka registraysan ka soo qaado Soomaaliya waxa la yiraahdaa 5 gobol waaye dhinacan ani 19 gobol aan ka hadlaa 9 gobol aan ka hadlaa kama hadlaayo 9 gobol oo hadda la sameeyay kaas adika dawladda Puntland u taala laakiin 18 gobol sida uu sharciga dhigayo aan ka hadlaa 18 kaas gobol 5 kamid ah waa dhinacan xisbiga nabadda marka ka soo qaad inuu haysto 5 gobol uu ka registraysan yahay cudud ku leeyahay dadka haysto still 4 gobol oo kale looga baahan yahay inuu helo oo baydhabo alliance la sameeyo xisbiyada ka jira oo ka sameeyo muxuu ahaa gado oo ka sameeyo xamar alliance-gaas inuu soo xisbigii waxa looga dalleeyahay waxa waaye in aysan qoyska halkaan jooga kaligiis uu noqonin xisbiga nabadda inuusan noqonin reer Puntland kaliya ay ku jiraan dad kale oo wax la leeyihiin wax la qaybsanayaan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddiga doorashooyinka heer qaran ee madaxa bannaan oo madaxdiisa sare ay barnaamijkeena nagala soo qayb gashay waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo jaamacadda BSU kaalo oo iyaguna runtii barnaamijkan qabanqaabadiisa iyo isku dubaridkiisa lahaa iyo taladiisa annaga xataa nagu dhiirigeliyay asee Soomaali Cable ahaan guddiga ku dhiirigeliyay haddana diyaar u ah inay sii wadi doonaan oo Puntland gobolada laga qaban doono gobolada kale ee dalka laga qaban doono jaamacaddu iyadoo ururka kaala iyadoo kaashanaysa gudoomiye ku-xigeenkeedii Axmed Shira sidoo ballan qaaday in barnaamijka noocaan oo kala ah ee madasha muwaadinka la sii wadi doono Soomaali Cable ahaan qayb libaaxda ayaanu ka qaadan doonaa barnaamijkii gaarka ahaa ee madasha muwaadinka ay nagu magac daray oo aan idin ballan qaadayno inuu sii socon doono guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waa mahadsantiin ka soo qaybgalayaashiina intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno waa anigoo Saalima iyo bahdii Soomaali Cable TV xafiiskooda Garowe oo idile isma dhaafno. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.